الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها خير زاد إلى يوم المعاد. walaalayaal, sidaynu dareemayno bishii ramadaan waqti kooban baa ka dhiman. midkaynu isku baraarujinayna ayaamahan soo socda waxa weeye al-isticdaadu liramadaan. bishaa fursadda qaaliga ah ee qiimaha badan sidii aynu ugu diyaar garoobi lahayna ramadaan. waxaynu ogsoonnahay tusaalayaasha adduunyada markaynu soo qaadanno, dadka ganacsiga ka shaqeeya marka la yidhaahdo halkaa carwaa ka jirta ama alaab jaban baa lagu soo bandhigaya oo aan sanadkoo dhan ku soo maraynin, nin waliba wuxuu u diyaar garoobaa siduu alaabtaa jaban usoo iibsan lahaa, talagalna uu sameeyaa. hadday waddanka dhexdiisa tahay iyo haddii ay meel kale tahayba, maruu fiirsa raadsado, maruu lacagtii uu kusoo iibsan lahaa baadi doono, maruu wakhtiga waraysto, wax badan buu isku hagaajistaa, weliba wuu ka sii horeeyaa. taasi waxay sheegaysaa ku dadaalidda adduunyada iyo qofkaasi fursadda alaabtu jaban tahay siduu uga faa'iidaysan lahaa. midhkaynu ka warramaynaa waa midh caynkaas oo kale ahoo, fursaddani waa fursad qaaliya oo aada u qiimo badan oo cimriga qofku si dhaqsaa hore ugu kacayo, barakoobayo. markaa siday dadku ugu kala diyaargaroobaan ayay uga kala faa'iidaysi badanayaan bishaa. ilaa 10 siyood ayaynu baraarujin lahayn sida looga faa'iidaysanayo ramadaan. 10 kan arrimoodoo hore aynu wadnay laakiin laga yaabo inay daciif inaga ahaayeen baynu xoojinaynaa. midda horeysaa waxa weeye anniyatu saadiqa, niyad wanaagsan inay jirto oo markaynu bishan kusii jahaysannahay ayaamo yarina ay ka hadheen, niyaddaadu inay wanaagsantay. ilaahu ramadaan haddaad i gaadhsiiso waxaan samayn doonaa wixii la ifaray oo dhan, inta aan kari karaan fulin. niyada wanaagsanna qofka haddii aanu xataa camalkii samayninba ilaahay wuu qoraa. qoladii beder la soo qabtay ee maxaabiista ahaabaa ilaahay waxau ihi in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayran mima ukhida minkum. dadkiinaa la qabqabtee maanta cabanaya, hadduu ilaahay qalbigiinna ku ogaado khayr, wixii laydinka qaaday wax ka fiican baaba laydinsii doonaa. ilaahay waa qalbi jire. muuminiinta markuu ilaahay ammaanayey baycatu ridwaan, qalbigoodu ku ammaanay, laqad radia allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. qalbigoodaa wanaagsanaa buu ilaahay, qalbigoodaasaa ilaahay waxa ay heleen uu ku siiyey. marka in qalbigaagu wanaagsan yaho niyad fiican oo go-aan leh oo aada isleedahay khayrka aada qabqabatid intaad kari karto inaad la soo diyaargarowdo, ilaahay baaba kugu garabgelaya abaalmarin weyn oo wanaagsanna waad ku helaysaa. waxa labaad aynu ku diyaargaroobaynaa alisticdaad bitacarufi cala allah biasmaa'ih wa sifaatih wa aayaatih, inaynu ilaahay aada u sii garanno subxaana wa tacaala, sii kordhino garashadiisa. garashada ilaahay addoonku uu garanayo waxaa ka dhalanaya inuu ka edebsado. haddaanu ilaahay addoonku garanaynina kama edebsado. ilaahay saad u baranaysaa waxa weeye asmaa u leeyahy, magacyaal iyo sifaat. macnahooda akhri: alcaliim, alsamiic, albasiir, alqaadir, almelik, alquduus. magacyadaa markaad akhrido mid walba nuxur buu leeyahy aad dhadhaminayso, oo ilaahay siduu kuu eegayay, siduu kuula joogay, siduu kuu ilaalinayay, siduu kuu maamulayay. aayaadka qur-aankiina waa saas oo kale. awoodaha ilaahay adiga kaa muuqanaya, caalamkan ka muuqanaya markaad akhridana ilaahay waad arkaysa, ilaahayna waad baranaysa. markaad intaasoo dhan isu geyso ee aad ku qanacdo ilaahay inuu joogo oo uu kula joogo adiga, oo uu jiro, oo uu ku eegayo, oo uu ku maqlayo, oo uu ku arkayo oo adigu aanad arkaynin. intaa markaad isu geyso waxaa ka dhalanaya, haddaad intaa ku qanacdo, inaad ka edebsato ilaahay subxaana wa tacaala. barashada aad ilaahay baratay waxay keenaysaa inaad ka edebsato.
waxaynu naqaanaa ninka madaxda maalan ee qofku u shaqaynayo markuu la joogo iyo markuu ka maqan yahay bani aadamku isku si uma shaqeeyaan intaa uu la joogo ee ishiisu ay arkayso wuu iska dhisaa wuu gebgebleeyaa kolba dhan buu cararaa wixii laga doonayo ku dadaalaa laakiin markuu qofkii ka tago sidii hore ma noqdo haddaba ilaahay wuxuu kaga duwan yahay addoomihiisa kani hadduu kula joogo markii hore iska dhisaysay ilaahay isagu marnaba kaama tegayo wa huwa macakum mar walba wuu idin weheliyaa ilaahay wuxuu kaga duwan yahay cid kaleood iska eegi lahayd oo makhluuq ahba weliba qalbigaagu eegaya qalbigaaga ayuu eegayaa oo aan cid kale arkaynin rabbi subxaanahu wa tacaala iska daa qowlkaaga iyo ficilkaaga laakiin qalbigaagu akhriyaya muuqaalkaaga iyo maqaalkaaga iyo macnawiyaadkaaga waa isugu mid ilaahay subxaanahu wa tacaala marka qofku heerkaa uu gaadho atacaruf cala allahi baa lay ilaahay buu bartay waxaa markaa uu yeelanayaa askari isaga ilaaliya oo garashadaa ilaahay uu gartaya oo damiirkiisiioo toosaya naftiisii waxay gaadhaysaa in lagu tilmaamo allawaama nafta qofka canaanata nafina waa alamaara qofkay xumaanta faraysaayo waa nafta aan ilaahay arkayn ama aan ilaahay baranin nafina waa allawaama qofkiiba ilaahay addoonkiibay canaananaysaayo markuu isilaa xaaraanta same oo sawkan ilaahay kula joogay ku eegaya waajibka markuu isidhaahdo ka tag oo sawkan ilaahay ku wehelinaya ee ku arkaya markuu isidhaahdo cibaadada ka sii jeesa oo soo adigan ilaahay hortaagan atacaruf cala allah waxay kordhisaa nolosha qofka macnay u samaysaa addoon dhababay ka dhigtaa inaynu arrintaa kordhinaano waa laga maarmaan waxyaabaha aynu ku isticdaadayno ama ku diyaar garoobayno waxaa ka mid ah alisticdaad biitibaaci rasuuli sala allahu calayhi wasalam maxabati inaynu nebiga ku dayano aynu jeclaano dabeedna aad siiradiisa akhrida markay ramadaan soo galayso muxuu samayn jiray siduu u diyaarin jiray naftiisa ehelkiisa ummaddiisa haddaad cid jeceshahayna macnaheedu waxa wey inaad ku dayato qofka aada jeceshahay waxaa run ka dhigaya jacaylkiisa inaad ku dayato waxaynu ku diyaar garoobaynaa afraad almuxaasaba inaynu nafteenna xisaabinno qofka bani aadamkii markuu doonayo inuu guulaysto dhaqaalihiisa horumarkiisa cid ay wada xidhiidhayaan dowlad shacab wuxuu isku dayaa inuu aqoon u yeesho waxa mumtalakaadkiisa iyo maal wuxuu leeyahay xisaab xidh buu sii sameeyaayoo dadku la tashan karaabuu ayuu la tashanayaayoo wax diyaaru la yimaadaa kii kalena dee isagoo fashilan buu tegayaa cidduu la xisaabtamaya cidduu la kulmayaba meeluu marayaba aan garanayn idan si aynu guul u gaadhno aakhiro ilaahay hortiisa waa inuu qofku naftiisa intanuu joogo adduunyada xisaabiyaa khayrka waktiga khayrka markaad kusii socotana xisaabtii sii kordhisaa sirta nolosha saxaabadii nabiga ka fahmay maqaaladahoodii mid qaar qaalaya bay ahaayeen oo dhaxal galay waxyiga u egaaday cumar binu khadaab wuxuu lahaa naftiina xisaabiya intaan la idin xisaabinin camalkiina miisaama inta aan la idin miisaamin xasanulbasri waxa uu lahaa raximahu llah inamaa khafa alxisaabu yowma alqiyaamati calaa qowmin xaasabuu anfusahum fi dunya wainamaa shaqa alxisaabu yowma alqiyaamati calaa qowmin lam yuxaasibuu anfusahum fi dunya dadka qaarkood xisaabtu aakhiro way u fududaatay markay iyagu adduunyadiisa soo xisaabiyeen qaarna way ku adkaatay markay iyaguse soo xisaabin waayeen adduunkii iyagoo gebgebleh ilaahay oo hor yimaadeen markuu qofku naftiisa xisaabiyo saddex arrimood buu ka dhaxlaa inuu ceebtiisa garto iyo inuu ilaahay ka cabsado iyo inuu jannada ku guulaysto waxaynu ku diyaar garoobaynaa shanaad alisticdaadu bilusuumi alistiqaama waa inaynu tubtii toosnayd ee aynu ka baydhbaydhayna islaamka iyo diinta aynu naftii ku hagaajinaa istiqaamadoo la kordhiyo istiqaamada waxa weeye hadafkaaga iyo muraadkaaga iyo meeshii yoolkaagu ahaa aada ku socotay oo aanaad ka baydhbaydhin tusaale haddaynu soo qaadanno maalan qof baa waxaa la yidhi waxaad la kulmaysaa boqor hebel magaalo heblaaye ayuu joogaa halkaasuu kugu casuumayaa waddada loo maraano waa taa xaadhan ee halkaa cade furan inta raaxada kaaga hadhay waa intaad isaga gaadhayso
intaa waad sii yaraha raadi xoogaa bacadaad la sii kulmi laakiin markaad isaga gaadho markaasaad wax walba iska dhigto rafaada boqorkaasi waa ilaahay subxaana wa tacaala magaaladaa uu kugu casuumayaana waa jannada dariiqanaad maraysaana waa kii islaamka haddaba haddii steerinkaaga intood qabato aad ku hagaajiso waddadaa oo si fiican aad u hayso ilaahay baad hoosgeliyaad gaari doontaa isna gacantu ku qabano casuumaddu ku geyn hadduu gaadhigu kula taraaro oo marna waddada uu xaggaa uga baxo marna uu xaggaa uga baxo haadaan unbad ka dhacaysa dadkaa waddada laga soo qaadayo iyaga iyo baabuurtoodii burburay ee boholaha ku dhacay ayuumaad la mid noqonaysa idan istiqaamada macnaheedu markaynu tusaale la fahmi kara ka soo qaadanno waa steerinkaaga inaad ku hagaajiso jidka cad ee jannada iyo ilaahay raali noqoshiisa loo mara islaamka la idhaah wa anna haadaa siraatii mustaqiiman waxaynu ku diyaar garoobaynaa isticdaad bidahaarati alqalb qalbiga inaynu nadiifino qalbigii wax badan buu wasakhoobay shaydaan baa burushkiisii ku wada bani aadamkii uu dabada ka soo riixay baa habeen iyo maalin bay saysataanoo naxli iyo nacaybsiiyo ayaa intaa habeen walba aad ku seexanaysa aad ku fikiraysaa qalbiga si dhinkaa ku dallacan ama culayskaa haysta ee waxa aynu sheegayna ka soo gaadhay inaynu ka masaxno aynu ka dabcino waxaynu ku heli karaynaa raaxada cibaadada iyo ka bogashadeeda ilaahay baa inala hadlo wuxuu uhi alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum miyaydaan jeclayn inaan idiin dhaafo inuu ilaahay dembiga idiin dhaafo de idinkuna dadka iska dhaafa khudi ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waxaynu ku diyaar garoobaynaa bikitaabati alwasiya inaynu dardaarankeena sii qorno haysodhanin rabadaan maasha allah way sii dhowdahay raashinka iyo alaabta iyo waxaasoo dhan iska diyaarso waad gaadhayo waad soomiyo kanaad samayn doonta dib u waraysa rabadaanadii inaga horreeyey imise qof oo ciidda diyaar u ah ama inay soomaan diyaar u aha ayaynu aasnayba cisho ka hor 2 cisho ka hor maalin markuu sii soomay ha ku talagelin waxaad og tahay ma ahee wakhtigaad gaadhaysa kuu noqonayo marka dardaarankaaga iska qoroo ha kuu diyaarsanaado siduu nebi maxamed inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dardaarankoo la qoraa waxay sheegaysaa qofku inuu diyaar yahay haddaana dardaaranka qorinna waxay sheegaysaa inaad weli dhagoolaynayso waxa kaa horeeya aanu dhab kula ahayn marka xaqiiqada dhabtaa loogu soo noqdo qofku wixii aanu huraynin horu u yeelaa saa daraaddeed kol haddaad geerida aaminsantaad ku qanacsan tahay dardaarankaaga waa iska qornaado wixii adiga kaa dayacmi lahaana qor ila dad baa kugu xidhane wixii kugu dayacmi lahaa ee dad ka lumi lahaana ama ilaahay xaqiisa lumi lahaana qor markaasaad aaminsan tahay inaad allaysanaysaad aakhiro ku jaahaysantay dadkan dhimashada isilowsiinaya ee qofka dhintay inay geeridu isaga keligii un ku gooni tahay ka soo qaadaya waa qaflah ka dhacsanaan xagga nolosha weeye xaqiiqada rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yihi xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa maa xaqu mri'in muslim lahu shay-un yuriidu an yuusiya fiih yabiitu laylatayni ilaa wasiyatuhu maktuubatun cindah ma habboona buu ihi qofku hadduu shay uu dardaarmayaa jiro inuu 2 habeen seexdo isagoo bila dardaarana xallo wixii xuquuqa waxa la yaalo wixii mudan in wax laga sheego diin iyo dunyaba iska qor waa arrimaha inagu adag bay ka mid aynu haysanada hadduu qofku dardaaranka qoro malaha inay geeridu kusoo degdegayso oo cimrigiisa iyo calafkiisa lasoo gaabinayo waxaynu ku diyaar garoobaynaa bikathrati dikr xuska ilaahay inaynu badino subxaana wa tacaala xuska ilaahay inaynu badino oo xuska ilaahay wuxuu sheegayaa socodkaaga inuu faas ka dhigo dariiqii aynu sheegayna la marayay speedkaaga iyo orodkaaga waxaa kordhinaya ilaahay xaggiisa aad u ordayso ama jannada aad u ordayso waa dikrigan iyo xuska safar haddii lagu jiro waa la tartamaa gaadiidleydaa tartamo nin waliba gaadhi wanaagsan iyo wakti wanaagsan iyo shidaal wanaagsan buu soo qaataa si wakti hore uu u gaadho meeshii uu ku socday marka jidkaynu marayno waxyaabaha orodkiisa kuu kordhinaya dikrigaa ka mid a siduu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa sabaqa almufariduun nimanka dikri yaqaanka ah ee daakiriinta ahi cid walba way ka dheereeyeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim sirtaa qiimaha badan waxay ka qaadan jireen rasuulkooda waxaa ku sugan saxiixa waxaa u soo cawday nebiga asxaabtii fuqarada ahaa ee dhaqaalahoodu yaraa aan waxba badan haynin ama aan waxbaba haynin
xaasidiin maaha laakiin khayrkay jecel yihiin ee walaalahooda kula tartamayaan waxay idhaahdeen dahaba ahlu duhuuri اlujuur calaa macnaa qowli dadkii maalqabeenka ahaa wax alla wixii ajri ahaaba iyagaa isku fuuqsadayba intaanu samayno soon iyo salaad iyo intan oo dhanna way sameeyaa dee wixii xoolo laga bixin jirayna way ka bixiyaan annaguna waxba ma hayno waa calaancalaya maxaanu yaallaa nebigu calayhi salaatu wasalaam khayrka kubaddiisiibuu usoo dhigay si qurux badan si ay u laadaan oo wuxuu yihi waxa aan idiin sheegayaa buu ihi oo aan idiin warramayaa sir baan idiin sheegayaa shay baad samaynaysaan marka aa fashaan ee arrinkaa camalkaa qabataan cid idin gaadhi mayso kii idinka horreeyeyna waa gaadhaysa ilaa cid intaa aad samayseen samayso oo kale mooyaane waxaana ugu khayr badanaysaan cidda aad dhex joogtaan wa kuntum khayra man antum bayna dahraanayh cidda dhex joogtaana idinkaa ugu khayr badan cidina idin gaadhi maysa kii idinka horreyna waa gaadhaysa تسبحون الله وتكبرون الله وتحمدون الله في خلف أو في دبر كل صلاة صلاة الدبادة ودون ذكر كده ذلك وإنت لين وخرينا بقولك سبحان الله والحمد لله والله أكبر بلاك أنت ضدك السماء سويرت السلام عليكم مرك الله هذا وإربدي سيكو كل فنا يا مصبار كيسي الشيطان تبتناها ليروه قفك يجيا مهردي بك سويس قبل باب برنامج كتاجن بل كجارسي هرايبو عرّي قفك أنت يا الله بدقيقة ما لها ما هل دقيقة inuu 99ka iyo markaa boqolaad intaa israaciyo way ku adagtay way adagtay waayo waa lagu heliyaa way ku sahlanaan lahayd laakiin waa kaligaa baan ahayn intaas dad oo dhan kaga dheeraynaysa waa kii markaa nabiga haddana u soo cawday walaalahay intii maqleeno way sameeyeen de waa fadli ilaahay buu dhaqaalaha fiicaniye u haneey waxaynu ku diyaar garoobaynaa al-isti'daad bit-taqwa inaynu alla ka cabsigeeni aynu sanadka ciirciirka ku dhacay aynu kordhino alla ka cabsiguna wax weyn weeye quraanku waxa ugu badan u dardaarma ama diinteen waa alla ka cabsiga 258 aayadood ama eray baa ku soo noqonaya lafdu taqwa quraanka dhexdiisa qiimuhu eraygaasi leeyahay ama amalkaasi leeyahay bayna bar ayuu quraanku ina baraya waayo waa sahayda u qaalisan ee adduunka lagala tago alla ka cabsigu dadka iyo dunyada iyo daaro way iska hadhayaan laakiin alla ka cabsiga sahay noqonaya watazawadu fa inna khayra zadi taqwa aqbalka iyo ijaabada camalkan aynu sameeynayna haba badnaadee wuxuu ku xidhan yahay oo tayadiisa sal oo ah alla ka cabsiga inama yataqabbalu Allahu min almuttaqiin min shaacirada waxa uu tazawad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-ghadi فكم من فتى أضحى وأمسى ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري الله كعبسك الصحيح قال ما أوجد مركو هبينكم بدو بعد إن صبحي أتجاري دونت إمسان إن اللي يراه عمره قوي عصبي هاي واجو بريء وقبل كل عيسى قصليه كفنتي سنة لتوليون أوجين asxaabtu ridwaanullaahi calayhim waxyaabahay dadka ku wacdi jireen ay aad ugu baraarujin jireen waxa kamida alla ka cabsiga uu dikrigu quraanku aad inoogu baraarujinaya iyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam qaladay ka tageen alla ka cabsiga ku saabsan saxaabada iyo salafka oo dhaxalgala wadaad akhrida aad iyo aad u saameynaya qalbigaaga Abdullah ibn Mas'ud waxa uu lahaa at-taqwa an yutaa'a fala yu'sa wa yushkara fala yukfar ويذكر فلا ينسى الله كعبس بوحوي إن إلهي لقى أمر قاته وأن لقوا عن سيرين إن إلهي لحسوسنا هذا أن لإلاوين إن لهم مهد نقاه وأن للضفرين إلهي نعمته سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب نوحى لها التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والشكر بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل الله كعبس وحوي إلهي قلبك كجرة وأن كم مغنانين أديك وحيجي سكو عمل فلا وحي يرى وكسيين كم هاد نقول سلوجين قيامها أنا أوديار قرابة أما قال الله بركيسا أرنتي شيء قلب النول إنك كصاب حياة وقدام بينتي قضى كتبنا هذا إن كل ديار قرابة إن وحوي الاستعداد لرمضان بالتوبة إلى الله إن إلهي توبتك أنا نوصل نقول سبحانه وتعالى توبتنا وحوي inaad garawshiya bixiso
addoon yar inaad tahay oo dhacdhiciisa iyo gafkiisa iyo simbirraxadiisu ay badan yihiin oo aan ilaahay weynaa u weynaynin oon uga xishoonin sidii munaasibka ahayd wamaa qadaru llaha xaqa qadri sidaa daraaddeed goor walba garawshiya bixinaya oo ilaahay ku laabanaya oo ilaahay hoos taagan oo ceebtiisa qiranaya taasaa lagugu dembi dhaafayaa oo goor walba ka warwaraya wixii qallooc iyo qaladaad ee ka yimid alla ka cabsiguna waxa weeye waddada loo maro aan idhaahdee dembi dhaafku ama istikfaarta ama towbaduna waa waddada loo maro jannada horey baad ka sii qaadanaysaa miftaaxii jannada weeye ilaahay baa wuxu uhi wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin dembi dhaaf u degdega marka qaadataan jannada miftaaxeediidin noqonayo hore u gaadhaysaan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaguna istikfaarta wardigiisa yowmiga joogtadaabu ahaa haddaad adigu isqancisay ama camalkaaga qaali u aragto ama aada iscajabisay yay taasi ku naftiya shaydaanku yay sidaa kaaga faa'iidaysanin rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu casharo inoo dhigayaa wuxuuna leeyahy maalintii walba astakfiru llaha fi lyowmi 100 mara 100 jeer baan astakfirullah 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 wa atuub ilay adigu intaad tidhaahdaa inteed xusuusataaba horta istikfaar waad ordaysaa une inteed ka xun tahay dembigaad samaysay intee buu kula weyn yahay camalkaad samaysay wax la yaab badan weeye weliba marka aakhiru cimri qofku uu joogay cimri qaalibkii ama uu kusii dhowaado waanu istikfaartiisu korodhaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu geeridii soo dhowaatay istikfaartu aada u badinayay caaisha hadday weydiisayna wuxuu nebigu ku jawaabay ilaahay wuxuu ummadda iga siiya calaamaddaa markaan ka arko waxaa sheegaysaa in cimrigaygii uu soo dhowaaday sidaa daraaddeed ama geeridaydi soo dhowaatay istikfaartan badinayaa waa macnaha ay sheegaysa idaa jaa nasru llah waalfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaban istikfaarta iyo towbadda isku dar cimrigaaga gebagabadiisu waa inay taa noqotaa marka 10kaa shay haddaynu samayno waxaa laga yaabaa in qalbigeennu safoobo camalka aynu ku jahaysannahay qiimaha badanna aynu wax badan ka qabsan karno fursaddana aynaan dayicin وهذا ما أقوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا برمضان بأمن وإيمان وسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة